الرحمن الرحيم داود يا شيخ ما هي قدر تلهو waxa inoo suura gashay inaan wareysi qaas la yeelano madaxweynihii hore ee wadanka Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan. Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa waayadan ku sugnaa wadanka Masar qaas ahaan magaalada Qaahira. Dr. Cabdiqaasim ayaa weydiiyay ugu horeyn waxyaabihii ugu waaweynaa ee wadanka ka dhacay 2009 kala soo gudbay 2008 waxyaabihii ugu waaweynaa ee wadanka ka dhacay waxay yihiin iyadoo wadanka Soomaaliya ay ka dalaaceen quracad badeed aan hore loogu arki jirin taasoo kale iyadoo wadanka uu iska casilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ugu horeyn madaxweyne sanad wanaagsan iyadoo wadanka ay ka dhaceen isbeddelka ugu weyn ee dhacay tahay inuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu iska casilay xilkii madaxweynimada Soomaaliya adiga Dr. Cabdiqaasim ahaan isla markaana aad ahayd madaxweynihii hore Soomaaliya sida u aragtay arrintan bismillaahi raxmaani raxiim mar hore ayaan sheegay oo adduunkii idaacadaha u sheegay Soomaaliya inayan madaxweyne lahayn baarlamaanna ayaan lahayn madaxweyne lahayn dawladna lahayn ee dad cadowga soo dhoodhoobay ay yihiin waxa ku amar ku taagleeya Soomaaliya oo iyagu waliba waxay ka yihiin la arag cadowga Itoobiya oo ku soo hagay qof kasta oo cadowga Itoobiya soo hagayna wuxuu mudan doonaa waana arki doonaa haddaan nool lahay maxkamad qaran inta la soo taago in lagu xukumo dembiga uu geystay oo ah khiyaano qaran ama high treason waxa Ingiriiska lagu yiraahdo taas oo abaalgudkeedu adduunka oo dhan yahay in ama la daldalo ama la dilo dadka noocaas ayaan ka sheekaynaynaa Cabdullaahina kaliya ma ahane waxa la wixii war loo rahaa ama nimankii qabqablayaasha dagaal oo dhan ayaa dembigaas geystay qoladay doonaan ha ahaadeen gobolkay doonaanna ha ka yimaadeen iyo kuwii kale oo ku soo hogaamiyay dalka cadowga Tigreeg ah magacu doona ha sheegto prime minister beena ha sheegto madaxweyne beena ha sheegto baarlamaan wuxuu doona ha sheegtee kuwaas jisadoodu waxa weeye ummadda Soomaaliyeedna ay ku dhaqaaqi doontaa haddii alla yiraaho sidii adduunkuba yeelay oo ah in maxkamad qaran la soo taago lana laguna xukumo daldalaad aan xabadba loo quurin waxa jirtay hadda ka hor diblomaasi Faransiisa oo dawladooda ka socdo ay soo dirtay halka igu yimid oo dadkii lagu afduubay galgaduud ka hadlayay iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliyeed wuxuu sidaas aad leedahay oo kale warsado yiri dawladda maanta joogta maxay tahay ya Cabdullaahi waxaan ku yiri dawladdii Vichy ee dagaalkii labaad ee adduunka Hitler uu dhisay France ee ninka generaalka uu yiri madaxweyne Hitler soo magacaabaanahay maxay agtiina ka mudatay waa la daldalay uu yiri markii dalkii la qabtay halka dhabahaas oo kale annana ku ayagu joogaan baan waxa loo daldalay khiyaano qaran buuka dawladdii Faransiiska oo uu soo dhisay weeye Hitler marka ciidamadiisu ay Paris dhexdeeda ku marahayaan baareedka ku marahayaan intaan laga saaray markii dalkii laga saaray ninkii isaga ahaa waa la xukumay waa la daldalay madaxda maantay kuwa madaxda sheeganaya waxay yihiin la arago dhabarka soo saartay cadowga oo shaabada u noqday dhabahaasay marayaan ciday doonaan ha ahaadeen darajaday doonaan ha lahaadeen waxa soo haray burcad badeedku marka dawladu jirto iyo nidaam waa dembi weyn weeye waa afduub loo geysanayo bad iyo biriba wixii afduub loo geystaa dembi weeye hadda laakiin maxaa jira badaha iyaga waxaa jira tuugo qolo walba leh oo nin walba leh oo intay isu kaashaday sanadyo badan wax allaale wixii hanti ahaa ee badda ku jirana gurta sunna ku shuba suntaas oo qabqablayaal dagaal oo hadda magacyadooda aan sheegayn ummadda Soomaaliyeedna ay og tahay maxkamadna la soo saari doonaa ay u ogolaadeen inay dalka keenaan qabqablayaashaas oo qaarna dhintay qaarna nool yahay suntaas ay dalka iyaga ku shubaan maraakiibtaas kuwa sheeganaya kalluunku laba nooc buu leeyahay kalluun waaweyn iyo mid yar lama ogola oo ilmaha ah oo koraya adduunka lama dabto looma ogola adduunku inuu dabto shabaagaha dabaya lama ogolaado
badaha adduunka looma ogola shabaagaha kalluunka yaryar uusan ka bixi karin Soomaaliya waxaa la keenay oo lagu dabayay in muddo ah kalluunkii hadhow noqon lahaa hantida ummadda ee badeed shabaagihii qaban lahaa ayaa lagu daldalay taasuna waxay ahayd dambi ummadda Soomaaliyeed laga gelahay halka marka laga eego wiilasha intay isxilqaamay xoolaha ayagu ka doontay haddana afduubay mararka qaarkood waxaan iraahaa way ku habboonay inay sidaa yeelaan way ku habboonay inay say walow aan tala Soomaaliyeed u tashatay ahayn waxayse ku eg tahay oo burcadbadeedka iyo wiilashaasuba ku eg yihiin markii dalku nabad uu helo cadawgu dalka ka baxo maamul raali laga yahay na uu dhasho sababtoo ah waxaan idin xusuusinayaa 6 bilood hadda iyadoo aan dawladuba jirin maxkamaduhu dalka maamulahayeen ma burcadbadeed baa jirtay ma ayan jirin dawladda 22 sano 22 sano ku dhawaadkii Maxamed Siyaad Barre Allah uu naxariisto dalka xukumay oo aan dawladda anu aan ka mid ka ma burcadbadeed baa jirtay ma ayan jirin burcadbadeed 9 sano ka horeysay oo xorriyadda markii aan qaadanay burcadbadeed ma jirin dawlad dadku raali ka yahay hadday timaado burcadbadeed wiilasha dhalinyarada ah ayagoon ciduna waxba u sheegan ayay meel ka fariisanayaan oo iska daynayaan inta ka horeysa Soomaaliya ninkaas burcadda oo kalluunka yagii qaadanaya oo xataa ay gaareen Mareykanku inta helikobtar soo qaataan xayawaanka yagii ay kamid ahaayeen muxuu ay shabeelka iyo haram caska iyo dibada keelay digiiranka inay waxaan leeyahay ugaarta inay gurtaan heerkaas la gaaray nimanka heerka gaaray in loo burcadeeyo oo loo burcadeeyo anigu waxaan leeyahay waaba lagama maarmaana waxay kamid tahay dagaalkay kamid tahay waxaase lagama maarmaana in arrintaas u dhamaato sida ay ku dhamaanaysaan ay tahay dawladda ummadda Soomaaliyeed rabtaan inay timaado dhalinyaraduna waxay cuni lahaayeen cunay ayaguna ay markaas ka haraan burcadbadeednimada inta taa laga helayo xeebta iyaduna dalka waad ogtihiin dal walbaaba adduunka oo dhanu wuxuu leeyahay cadad kilometer ama miles la yiraaho oo bada oo xeebtiisa ah oo xuduudiisa lama soo gali karo annaga xuduudaha iyaga waa la dhooban yahay madaxweyne sida aan la soconno in qeybaha sanadkan dhacay waxa kamid ah in ay ciidamadii Itoobiya oo dib ku taagan dadka Soomaaliyeed ah inay wadankii meelo kamid ay ka baxeen qaasatan caasimadii weyneed ee Muqdisho in maanta uusan ku jirin ciidan Itoobiya horey waxaad u sheegtay inay ciidamada Itoobiya ay geysteen xasuuq marka hore bal dareenkaaga ku aadan ka bixitaanka ciidamada Itoobiya caasimadii weyneed ee Muqdisho waa sidee waa midka shacbiga Soomaaliyeed oo kale waa midka gobolka Banaadir shacbiga isugu soo baxay garoonka istaadiga Muqdisho oo sabaanada tan aan la isugu imaan waagii dawladii aan madaxda ka ahayn ay joogtay ee ugu dambeysay midka shucuurka uu qabo weeye oo kale waxa weeye marka uu horeysa Ilaahay baan u mahadnaqaynaa cadawga Ilaahay jabiyaan u mahadnaqaynaa marka ku xigtana waxaan u mahadnaqaynaa muqaawamadii dhalinyarada ahayd oo dhiigooda maalkoodii naftoodaba u horay xoreynta dalka khaasatan caasimadda waxaan u mahadnaqaynaa dadkii ganacsatadii haweenkii duqeydii culamaa u diinkii wax allaale wixii ay awoodayeen ku taageeray oo xoog iyo maal iyo muxuu ahaayay soo dhaweyn intaba ku taageeray muqaawamada waxaan shacbiga Soomaaliyeed u sheegayaa hadday dhici lahayd cadawga Tigreega oo Mareykanku soo adeegsaday inay inta iska yimaadaan dalka sidii dad wax magarad oo kooban ay ugu sacbiyeen inta loo sacbiyo inay dalka iska joogaan oo markii qandaraaskii buushii uu ka dhamaado ama dawladda Mareykanku ay tiraabaxa kaliya baxaan ummadda Soomaaliyeed taariikh mugdiya oo ay waligeed ka bixinayay gali lahayd waxay gali lahayd inay dad jira ahayn khaasatan dadka caasimadda degan iyo gobolada lagu dagaalamayba waxaa taas bedelay dadka Soomaaliyeed inuu yahay dad dalkiisa dantiisa diintiisa u hiilinaya cadawgii ku soo duulay ee ay soo adeegsatay dawladda adduunka ugu weynuna inta
gaashaanka u daruuray ka saaray dalkii iyadoo aan weliba dawladu jirin taas oo daba socota halgankii axmed gurey halgankii sayid maxamed cabdilla xasan oo gumaysiga lagula dirirahayay oo mar walba gumaysiga looga adkaanahayay inkasta oo uu isu soo kaashanahayay oo meel walba ka imaanayay oo diyaaradihii ugu horreeyey kula dagaalamayay soomaaliya oo ku burburiyey xaruntii sayid maxamed cabdilla xasan marka waxaan leeyahay taariikhdaas ayay dadka maantay soomaaliyeed dadka caasimadda iyo dadka soomaaliyeed guud ahaan taariikhdaas ayay la qabsan karayaan oo waxay kula qabsanayaan halganka ay galeen ee sidii aan sheegaynay kumanyaalka qof uga dhimatay kumanyaalka intaa ka sii badan uga dhaawacantay ayay ku gelayaan ilaahayna gufraan ayay kaga helayaan maxaa jira naftu waxa ugu weyn oo qofku bixiyo wey hanti waana la helaa waana laga waayaa nafta haddaad bixiso ilaahay xaggiisa un badaadaysa intii naftooda ku muxuu deeqday oo jihaaday oo ilaahay wajiga u jihaaday iyo intii xataa iyaga oo guryahooda jooga madaafiicdu inta ku dhacday ilmahoodii iyagoo baaba'ay ahlul janno weeye insha Allah ta'ala mujaahidiin weeye iyaguba kulligood wada mujaahidiin jannada Allah ka waraabay ayaan leeyahay sharafta ummadda Soomaaliyeed soo celiyeen sharafta Afrika ayay soo celiyeen sharafta islaamka ayay soo celiyeen islaan rumana inaga ah Soomaali ayaana ah Afrikaan ruma oo isticmaalka la dirira kuwa isticmaalka u soo hiiliyay oo imberiyalada Mareykanku soo ijaaratayna waxa weeye cadawgii Afrika waxa weeye cadawgii islaamka waxa weeye cadawgii bini aadanimada sida daraadeedna meel zanaawi iyo buushba waa in lagu xukumaa dambiga ay ka galeen aadanaha dambiga ay ka galeen aadanaha waa in lagu xukumaa haddii qaanuunka adduunka u yaala uu yahay mid soconaya qaanuunkaas oo xukumaya in maxkamadda inta la soo taago waliba daldalaad lagu xukumo madaxweyne sida aan la soconno wadanka walaalahayaga ee jamhuuriyadda Djibouti shir ayaa ka socda oo ay ku shirayaan dawladda federaalka ku beelgaarka ee Soomaaliya iyo isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya ee garabka Djibouti waxaa la leeyahay 257 xubnood ayaa laga siiyay baarlamaanka RS-ta inay ku biiraan TFG-da marka adiga fikradaada ku aadan shirkaas dib u heshiinta Soomaaliya isla markaana dhaliyay in ciidamada Itoobiya wadanka ka baxaan taas oo heshiiskii ku jirtay waa sidee aragtidaada marka waraysa waxaan qabaa ciidamada Itoobiya dalka waxay uga baxeen dagaalkii lagu qaaday ee muqaawamada Soomaaliyeed ay ku qaaday ee hadda aan tilmaamayay ee uga bixin heshiis la gaaray kaliya heshiisku wuxuu ahaa inay ka dhigtaan shaabad iyo marmarsiyo sababtoo ah dawlad anigu uma aqoonsani nimanka Tigreega soo hogaamiyay oo dalka soo galiyay oo Cabdullaahi Yuusuf madaxda u ahaa sidaa daraadeed Djibouti waxa ka imaanaya kama faalloon karo sababtoo ah shacbiga Soomaaliyeed wuxuu rabo hadday noqdaanna isaga sheegi doona markaasaan ku raaci doona wuxuusan rabin hadday noqdaanna shacbiga sheegi doona markaasaan ayidi doona wixii shacbigu sheegay dad badan ayaa bariyahan waxa isu sharaxayaan jagada madaxweynimada Soomaaliya oo haatan dadkii waa ay musharaxiinta waa ay tira bateen waxaad ahayd madaxweynihii hore ee Soomaaliya dadku bariga aad ka imaanaysa carta lagu doortay waxa ay safnaayeen afguuye ilaa Muqdisho ilaa ay Baradogle sida aan ka warqabno waxaan ka mid ahaa dadkii dawladda aad ula soo shaqeeyay marka fikrad ahaan ma tahay musharax oo ma u tartamaysa jagada madaxweynimada Soomaaliya haatan loo tartamay meeshaan arrin sharaxaad la yiraahdo ma taalo dal burburay dad baaba'ay dulli aan ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda soo marin ayaa maanta Soomaali haysta saa markay tahay ciddii ummadda Soomaaliyeed u garato muddada kooban inay qaxootiga u dejiso waa ku celinaya mar kale qaxooti dejin weeye dawlad kasta oo maanta Soomaaliya isku raacda waxa ay qabataa 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano waxa la wadi doonaa qaxootiga la dejiyo dhulkii burburay oo dib loo dhiso ummadii dhaawac ahayd oo la daaweeyo kuwii lagu go'een oo laga loo sameeyo kuwii gacmuhu go'een oo gacmo loo sameeyo kuwii qabuurahooda baalad dariiqa ku xuneen eeyuhu dariiqada ku xuneen la socotaan xamar waa joogay eeyaa dariiqa ku xunahayay meydkii dadka yaga waad aragteen baan u malaynayaa lafahooda sidii loo duugi lahaa hawshaasaa u taala cid kasta oo Soomaali inta isku raacdo ay maanta tiraaho muddadaas
2 sano 3 sano waxay doontaa ahaatee anigu waxaan ka mid ah inta u codaynaysa ciddii Soomaalidu isku raacdo inay muddadaas qaxootiga u dejiso ayaan ka mid ah inta u codaynaysa oo soo dhawowle oo wax la qabanaysa oo Ilaahay u baryaysa ayaan ka mid ahay dalkayga inaan ku noqdo iyadoo nabad leeyahay ayaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeedna ciddii hawshaas u qaban lahayd inay hesho ciddaasuna cid hawl kaligeed qaban karta male wax walba Ilaahay baa qabta ilaahayna xadiis rasuulka jira uu leeyahay qofku hadduu jagada doono ilaahay isagu u wakiishaa waa Bukhari baa qoray marka ilaahay ku wakiisho macnaheedu maxay tahay ma wax ilaahay ku wakiishaa wax ka qaban kartaa waxba kama qaban kartid waayo waa ku fashalaysaa ilaahay markuu u dhiibo oo asagu amro waa ku gacan siiya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ciddu asagu amrayo inuu noo dhiibo ciddaasuna ay qaxootiga noo dejiso dhulka burburayna ay muxuu ahaay noo dib noogu dhisto waana la shaqaynaynaa ma aha sidii aniga waa run 100 kun baa soo baxday 100 kun oo soo baxday oo afgooy iyo xamar iyo istaadiyaha taagnayd maalintii markii la sacbiyay oo la dhameeyay sidii aan shacbiga Soomaaliyeed wax badan u sheegay waxa la yiri habartii muxuu ahaay dhashay geesi habartii dhashay waa dhamaysan miyaa la yiri halkaas lagu kala dhaqaaqay waxay ahayd waxa in la isla qabto wixii ay ka cadawgii duulaankii cadawgu soo qaaday iyo dagaalkii uu nagu hayay Soomaaliya dhan inay soo jeesatay looma soo jeesanay waxa la yiri hadana waa soo dhaweynay waa ku soo dhaweynay aaway wixii aan sugaynay meey barwaaqadii meeday maxaa roob u dii waay maxaa wabiyaashu u qulquli waayeen maxaa cirku muxuu ahay roob u keeni waay maxaa dhulka barwaaqo looga heli waay haatan waxa sugaysa ninka qaban doona miskiinka aniga markaas ma ay jirin anigu waa lug laahay anigu waa gacan laahay aniga reerkii baa baabaay aniga aqalkii baa jajaba sugaysa marka waxaan leeyahay ilaahay mid khayr qaba aan noo keeno dad khayr qaba Allah noo keeno waa midda labaadna kulligay waa inaan la shaqeyno aniguna waxaan ka mid ahay inta la shaqeyn doonta hadii alla yiraahdo aad baad u mahadsantahay madaxweyne wareysigan qaaska oo aad u soo ragelisay inaad si telefishinka Universal وانا كاغا مهد علينا ومهدسنتي Universal aad iyo aad baan ugu mahadinayaa runtii wax badan bay qabataa oo shacbiga Soomaaliyeed gaarsiisa marka salaaniga gaarsiiyay insha Allah ku daawan doonaan bidil alkareem hadii ana dabayluren awadna la naftaydi